koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyaa kalamaane dadka koonka ku nooli kartidooda aqoontay wax ku soo kasbadaane kiinu qaylamiya war maxaa kaloon ku qoraabana qaylo ku noolanahay aryaxaad nagu haysataa maqarnigaana qaylo iyo qarax waxaan ahayn lagu shaqaystaa waliinku ma haysaane ninba tacabkii tolay kaamaal baa la yidhi wardimaya oo waxana qaylo ma ahane waxaa la idiin yaabaa doorashada soo socota markaad qoondada dumarka hunguriyeysaan maxaad tiri goor orag tiradiiska dhiiri wax la igu leeyahay ma jiranan kore wareer kalmaanow anigoo kutubay ka yaaban ayaa odu dhigila noo yimid warnimayo murankiinan ka yaabay Soomaalina dhaqaalahay ku muran tahay ma lacagta shidaalka ay soo gaartay amiirka Imaaraadka imaanaya ma tiri war Imaaraadka nooga bayl anagu caruurta aan noo siiyay adan kartay baligin dhaqayla dhaamiya badayadu ib ma walaalaha waxba laba socotaan ra'iisul wasaare Khayre bara oo dikayri hayehe ma nabadeen nolola bara wala gay raba shirki qamiiska galaa wasiirada miyaa ka dhacay baraaw tuba akhranka miyaa xagga lagu soo xiraya war wala weynay ma xisbigii weynaa hadana sii weynaa mahdi guula sheegay miyaa baraaw laga furaya oo maandeeyo adeer waxa ay leedahay madaxdooyada laga guuray wareer dhacay iska daaya wareerke warka naga suga madaxweyne lafta gareen oo shalay tagay ayaa ra'iisul wasaaraha baraaw ku soo dhaweeyay wuxuuna u tagay garoonka diyaaradaha la dhisay inuu furo xarigowna ka jaray aryaanaha waxaan maqli jiray xoogaaga waxa kuugu daran kii xirkaha kaa gooya waxaana uga jeedaa maalin kasta madaxa xirig goysaan maqlow hayaahe horta yaa u sooha war koonfur galbeed warka ma haysiine soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulkaas dib ay u dhaxdaa la yidhi waxaan la isku haystaa waa la badanaya waa la yaraynaa aryaanaha waxaan maqli jiray mugaceelay heshiisaa xoolaa lay biyo cabtaa hadda waxaa la isku dirinaa quudaan jirin qoryuu guro miya naya waxaan leeyahay haddii baarlamaanka koonfur galbeed la soo saaro waxaa laga heli doonaa magay keerow ali gaabo keerow eedan ali malak nuurow iyo kuwa kale badan waxa dilmaantay inuu ku soo iyo mad keerow waruna magayaalkan ku tagay ka baaray isankiin taariikhda ku baaray koowde fiisane iyo dalahow iyo numdubow iyo khalafow iyo sacadow iyo waaga soo mugordaan miyow madayo adigana lama war mugin la siraahdo deetay gorgorad waa deejtay dadka aayuna meel naga fadhiiso warnimada war ma aysan maanta dhusamraan ciidankii dawladda ku dayaaray ayehe ma mushaar la'aanayna isku dilayaan war ahlu sunay fadrak ma u kala jabeen ciidamadu waraada ayax tag eelna reebaa la yiri ma qayb wadaadadii kamid ah ka dhaxdhalatay ciidanka warda adi waa yaraatay ciidanka madalay isku diraysa war aar hadegdegina awliyadu ma dhimatay way dhuumataaye warnimada waa nala waalateen madaxweyne qorqor rabay inuu madaxtooyada cusub ee galmudug ka dhaxdhigo xeradii 22 kadibna ciidankii nabadsuguda madaxweynaha ka sii hormaro xerada galay militariga 22 ugu tagay askartii joogtay qaarana rasaas bilowday markii sidaas isku dhac ku bilowday miyaa bilaabatay Allah saqiire war xerada 22 xero militari weeye maamulka rayidka ah meel kale uu degmo magaalada ka waayay war dawladda maamul goboleedka iyada ka mas'uula meeshay doontaa inay digi kartaa aryaadaha idin koonis wareer dadkan yuwa ka daalayo dagaal sokeeye doonima dadkan yuwa ka daalayo dagaal sokeeye doonima aye war Cabdullaah Shariifka waxa laga dhadhansan karaa dagaalka Kenya waa rabnaa warnimada war meesaane Jubbaland maanta ciidamada ka qaadeen magaalada Kismaayo waxay u geesay ciidamada magaalada Dhobley haddana xanta soo baxay soo sheegaysa in ciidamada loo diyaarinayo Baraxaw warnimada waxa la yiri nin reer muduga ayaa saaxiibkii maqaayad geeyay anna ay nooc wixii ilay ka cunteeyeen ninkii saaxiibkiisa wuxuu yiri istakiin noo keena reer mudugii asoobodo wuxuu yiri waxaad leega tahay istakiin iska daaye aan xitaa koobi cabi karin war waray kaasi ma hangoolkii galmudug buu ahaa warnooyay dawladda Itoobiya saamigii digada berbera way kala wataan yiri maxaa kala socotaan war dad waa la tiini awliyaa Itoobiya ka sii saami berbera war Itoobiya waa la hadlay wax walbana waan wadaagnaa war waxa
waxaan idin idhi marse lagu caweeyiyo nimaan bad iyo cayl haysan maraakiib casriya foolfa iyo doonyo cararaya casirkii kumuu iibsadeen caynad lacageede waxaa loo cartamayaahi waa ceelashii bari cidihii waqooyuu rabaa inuu ka cayrshaa tiradeera waa urdaama annagana tiri bad ma leedaan oo leh xeebta ugu dheer afrika war naga tagaalgacay bad ma martee waxaa maray webiga iyo mees aryaadhaha kenyaan gardaradeeda arkaahe mugna weyadoo iyo mees ka gaalkacyo lagu haysata waa arkaysin haddaan leeska dhicin elitariya taageeradeedaan u jeedaaye ayadoo ish baydhaw nagu astan waa la arki doonaa arbaawayaal puntland xuduudaheeda aa ilaashanaysaa bad iyo beriba war puntland waxaa tahay wakiilkii qaramada midoobe james aswan madaxweyne daniyana la kulma doorashadeena ka wada hadleen war ma haysiine maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxay xukun dilaa ku xukuntay askari dilay wiil ciyaartooy ah oo askariga saaxiibkiis gool ka dhaliyey war booliiska Soomaaliland waxay garoonka Hargeysa ka qabteen nin Masri ah oo cashabari urursanaya war waa cashabari u taqaan annaga gooyada u naqaan dadkeena cunta marka xaad la qalaatay baad wax kuma sheegtiin